subxaana wa tacaala. shalay awood ayuu lahaa, karti ayuu lahaa, wuxuu ahaa nin kibra oo xaqa ka leexda, laakiin maanta tabar ma laha. ma awoodi kara inuu istaago, babisaa lagu boodaa, caanaa lagu taslinaa, biyaa lagu shubaa, gabaalay uga soo noqonayaan. waayo wax walba ayaa loo samaynaa. malakumeed meel uu joogo ee loogu talagalay inuu xayaatada bixiyo, axad wax ka tari karaa ma laha. rasuulku wuxuu yidhi geedka xabatu sawdaa la yidhaahda waa daawo, cudur walba ayuu daawo u yahay ilaa geerida maahane. dadkii waa u soo kala ordeen, asaga waa sakaraad. waxaan ka hadlayna waa qof daalim ah iyo gabar shaydaamad ah. meeqa qofood ayaad aragteen oon sariirta lagu celin karin. ilaahay maruu tilmaamayey muxuu yidhi haddaad arki lahayd idin daalimuuna fii khamaraati almowt, wakhtiga daalimiinta ay ku jiraan khamaraadka iyo maashoodka meydka, dhimashada xanuunkiisa. waalmalaa'ikatu baasituu aydiihim, malaa'igtana ay gacmahooda u fidinayaan say xayaatada uga soo jiidaan oo ay leeyihiin akhrijuu anfusakum, naftiinna soo bixiya, alyawma tujzawna cadaaba luun, maanta waxaa laydinku abaalmarinaa cadaabkan ugu xun. ninka daalimkaa inuu dhintaa ma rabo, nafta ayuu celinaa. malaa'igtu waa garaacaya, gacmahooday u fidinayaan. waalmalaa'ikatu baasituu aydiihim, gacmahay u taagayaan si ay xoog uga soo bixiyaan nafta. sababta uu u diidan yahay inuu dhintaa maxay tahay? sababtu waxay tahay xaqa ayuu raaci waayey, daalimad ayay ahayd ama daalim. rasuulku wuxuu yidhi man axabba liqaa'a allah, qof walba oo jeclaada la kulanka ilaahay la kulankiisuu jeclaada subxaana wa tacaala. qofkii naca la kulanka allana rabbi la kulankiisa ayuu nacaa. gabar saxaabiyada ayaa tiri rasuulkii allow dhammaanteen geerida waa necebnahay, qof inuu dhinto jecel ma jiro. saa ulama jeedi ayuu yidhi nebiga, ee waxaan ka wadaa qofka iimaanka leh, rabbigii rumeeyey, diinta raacay oo xaqa dhaqangeliyey, ku dhibtoodoo xalaasha ku dadaalay, xaaraanta ka gaabsaday, nafaska islaameed aan dhib iyo dil gaarsiinin, xoolaha islaameed aan boob iyo dhib ku samaynin. marka lagu soo xaadiro raadi ahaashada allah loogu bishaareeyaa. ma jira shay uu kaga jeceyl badan yahay la kulanka alle. la kulanka allah ayuu jeclaadaa, markaasuu ilaah asagana la kulankiisa jeclaadaa. laakiin axadka munaafiqa ah ee daalimka ah, diinta alla diidee ku dhaqmi waayey oo xaqa raaci waayey, marka lagu soo xaadiro oo sakaraadkiisa la gaaro ayaa loogu bishaareeyaa ciqaabka, cadaabka iyo dhibka alla agtiisa uu ku leeyahay. ma jiro shay looga neceb badan yahay inuu rabbigii la kulmo. la kulanka alla ayuu nacaa, markaasuu ilaahay asagana la kulankiisa nacaa. rabbigeed la kulankeenna ma nace, diinta alla aan raacno, war xaqa aan ku dadaalno. ka warrama haddii la kulankeena ilaahay naco, war xaalad dhibaato badan waayo xaaladda noocaas ah. maca daalika sababta uu nafta u celinaayo waxaa loogu bishaareeyey ciqaabka iyo cadaabka alla agtiisa uu ku leeyahay. naftii ayuu celinaa, inuu bixiyo ayuusan rabin. malaa'igta gacmaha ayay fidinayaan, waxay leeyihiin soo bixiya naftiina, maanta waxaa laydinku abaalmarinaa cadaabkan ugu dulisan. waana waxaad ku hadli jirteen xaq la'aan iyo beeninta iyo kibirka aayaadka alla aad ku kibirteen. haddaba mar allaala marka ay sidaa